نما كوسو لابانيا محمد هي تاسو ماركاس هذا sheegay عبد الفتاح oo aniga hadda for example hadaan ka ahayn yasin ama member ka ahayn macnaha ma helaya miya waxaan uga baahanahay Soomaaliya tabato may hayda imku markaan ku leeyahay kun iyo muxuu ahaa 1600 ay hal project oo maxay dadka xilliga yimaadeen iyo wax walba laga haya ma jirto urur kale oo Soomaaliya 1600 oo jeer lagu soo noqday sanadkii wax la qabtay marka ma jirta urur kale oo matala dadka oo maxay inta qabtaa weeyaan ma jirto dadka naga wada iman inagu soo noqonayaana ma aha dad anaga maxay idin sheeg yeesanka imka tusaalan ku tusaya waxaanu sameeynay wax la yiraahdo maxay wada tashiga maxay arimaha nagu soo biira waxa jirtay nin muxuu ahaa finisha oo iskuulada maxay idin sheeg carruurta dhiganayaan ku soo qoray arin Soomaalida dhaawacaya anaga marka hore waan ka wada hadalnay fikradii waan isku tusnay waxaan ama ka anagu sunno noo ah inaan inta waxaas maxay arinkaas u dhuun dolasho aanu yeedno dadkii inta u dhuun daloolo dhan baan isku wada yeedhay marka marka arinkan maxaa laga qaban karaa runtii fikrada anagu aan istusaynay fikrado maxay dheeli tiraya ayaa meeshii ka soo baxay ilaa imaka waxa lagu jira marka inaan dhalinyartii dib loo soo wareysto in maxay arimi marka waxaan ku sheegayaa waxa ka jirta arinkan dadka la celinayo laftirkooga waxaan u yeernay dadkii ay arinkaas khuseysay waan kala tashanay markan dawladda maxay wasaaradda arrimaha gudaha la kulmeynay wixii ummadda aan la kulnay waliba anaga yeesana naga hayn oo cid walba leh oo intii maxay wadanka maxay dadkii maxay expert ka ah wixii iyaga ka soo baxay ba intaan qornay baan waxaan u geynay wasaaradda arrimaha dibadda wixiina ma aha wali wax qarsoone waxay ku jiraan maxay nadkeega waaya nimcano horta waxaan rabnaa inaan si sax iskugu cadeyno matalaada iyo midnimada Soomaali dhaqan waxay u leedahay reer guuraa waliga ma aragtay markaan si sax u wada hadalno qof dan guud dhaawacay oo xabsi loo galiyay Soomaaliya gudaheeda ama meelaheena kala xataa inagoo eryanayno qof dan guud dhaawacay laakiin qofka markuu uu dambeeleed ama dan shakhsi dhaawaco hadduu qof dilo waa loo toogtaa wadamadan aan joogno maxaa uga duwannahay danta guud ilaaliyaan danta gaarka qofka canshuurta dhaca waan ognahay meesha la marsiyo ama habeen hore warka xalayt waxa lagu soo saarayay ninkii dhamaayay booliska musuqmaasuq sameeyay wax cunay danta guud bay ilaaliyaan anaguna danta gaarka ilaalinaa marka waa inaan horta fahanno Soomaaliyeed danta guud ay wado ma nahay bulsho ku taageeri karto ma nihin waxaan nahay bulsho wax dhaliisha waxaan ku dhaliilaynaa qofka anagoo aan dhaliisha aan wadno badal wadinin ayaan wax dhaliilnaa horta marka koowaad reer guuraa baan nahay ninka geelisu banaanka ka keentay gabadhana arigeeda banaankeesay gudaheeda ilaaline Soomaaliya tusaale ahaan qashinka banaanka lagu turaa laakiin guriga waa gudihiisa waa hagaajisan yahay halkan aan joogno guriga gudihiisa soo doono u qurmaa laakiin banaanka qashinku ma tuuri kartid ama goobta qashinka la dhigo saarafta uguma firdhin kartid mid aan marka rabo inaan sheego waxay tahay waxba yaan la dhaliilin Soomaaliyeed hal arin waan jeclaan lahaa inay Soomaaliyeed wax ka bedesho Soomaaliyeed haddaan si aan ka gabasho lahayn u hadlo waxaa lagu tilmaamaa yaasin maqsugeeda hal dhuun inay ka timaado hal group oo isku fikir ah taas ma xaqiijin karo ma dhihi karo way jirtaa iyo ma jirto laakiin waa sida la tilmaamo oo lagu farmiiqo hal la balaariyo xiliyada yaasinka hal la furo dadka hal loo soo bandhigo anigu ma bixiyo yaasin hadda ka horna waa sheeg waxaan dhahay ma bixiyo li'anna ma helin weligay email dhahaya yaasinkeena ka soo mid noqo ama bixi okay laakiin eedaas ma saarayo Soomaaliyeed ana isa saaray ana waxa la rabaa inaan doonto maadaama aan Soomaali ahay ana waxa la rabaa inaan dhaho xagee wax ku bixiyaa inaan waxaan rabaa ka soo mid noqday midnimada iyo kaliga midnimadan dhaawacna waana sida Maxamed sheegay waxaan rabaa inaan soo gabagabano barnaamijka intaan soo gabagabayn laakiin waxaan ka rabaa kulligiin afartiinaba waxaan ka hadlaynaa waxa ay tahay in aan ka fikirno cunsurinimadan anagii baan aragnay Soomaalinimadan anagana la ku haysto wadankan waa isla ognahay sideen anagoo mideysan uga hortagnaa mar waxaan rabaa afartiina mid walba tala kooban inuu soo jeediyo qofkii rabaa bilaab waxaan gudoomiyaan ku bilaabaynaa aniga horta ugu muhiimsan waxa weeyaan meesha yaala waxa weeyaan in runtu maxay hadalku runtu duxdiisa waxa weeyaan runta weeyaan liito waxa weeyaan waxay qabataa waa wax maxay biyo kama dhimcaana
ummaduna inay u timaado ilaa maxay inay sheeg la dhiilgareysa warin meesha yaala weeyaan waxa kale arkay meesha yaala saddexdan walaale maxay dooda igula jira saddexdaba aanu shakhsiyan waan wala kulmay waan u yeedhay markaan wax qabanayo xitaa maxay inay sheeg intii aan karaankayga ahaa way ii yimaadeen waxyaabo badanna runtii way iga caawiyeen janagale waan waxay markaan leeyahay la tashiga waan laba jeer iyo saddex jeer waan u yeedhay arrimaha muhiimka ay taaganayeen markaa maxay wixii wax laga bedeli lahaa qooj si joogtuuba noola shaqeeya walaalo maxay inay sheeg nimco iyadna si joogtay runtii shaqo badan dhankay ka haysa oo waxaan leenahay xidhiidh wada joogtaan leenahay marka arrinka jirta wuxuu yahay dadkii imaka meesha igula jirayba haddii aan sidaa shaqo maxay dhow aan u wada leenahay dadkan kale baase muxuu ahay sheeg foge maxay la gaaray laakiin su'aasha iga jawaab macnaa sideen hadda kalley waxa iska cad waxa waaye xoogaa midayntii ma ku sheegay midayntii haddaan ku soo noqdo midayntu waxa weeyaan in horta waaqic ogaano ma joogno dhulkii kululaa iyo mandaqadeennii dhul qabow baynu joognaa waxaanu joognaa dhul caruurtiisii aynu joognaa hooyadii iyo aabbihii inanka iyo inanta guriga kula jira ay hoosta ka qaylinayaan hooyadii iyo aabbihiina maxay ay fahmi laayihiin weliba eed aan saarayo aabbayaasha fidmada waxa wadaan waxa weyn ugu badan waxa aabbayaasha hooyooyin badan baad arkaysaayoo wada maxay single mother aad waa tala runtii aad u qiimo badan haye nimco nuur hadalka horta maxamed wuu sheegay sida saxda ah midnimadana anigu kulleyba hadda waxaan arkaa inteena meelaha ka hadhadlaysa midnimada waa un tilmaami karnaaye ma hayno jidkeedii ma hayno oo waxaynaan ku haynin wixii horaa naga khaldamay marka dadkeennana waxaan mar walba isku eedaynaa see wax ku saxnaa laakiin ma dhahano see wax ku saxnaa meeshii aan ka dhahayno ma dhahano wixii maxaan wax u khaladnay marka horta maxaa midnimada noo diiday way su-aasha ma midoobi karnaa ma taalla meesha say ila tahay waxa aan ku midoobi la'anahay ee aan isku haysano ma wixii Soomaaliya yaala annagana halkaan ku haynaa mise halkaana wax kala jira dhibaatada ugu badan oo halkaan jira waxay tahay Soomaaliya qabaa'ilada la isku haystay iyo deegaano tuhun waxbaa la cunayay Soomaaliya wax cuntay aniga iska wuxuu qabso u sameeyay Nimco Nuur project bay qaadatay tuhunka ma la iska badbaadin karaa haddii tuhunkaas uu dhamaadaan waxaan qabaa waa la midoobi karaa haddii tuhunku dhamaado marka tuhunka ha laga hortago waaya cabdifataax wali walaal horta waa xaqiiqdii waxaad moodaa urka Soomaaliya liito waa fursada kaliya xaqiiqdii inoogu dhoweeyey oo aan aaminsanahay inay ka shaqayn karto Soomaaliya filan inay midayn karto oo fursad badan baa soo maray xaqiiqdii oo urur jira weeye oo muddo jiray oo magac Soomaali ahaan ku jira oo adag ah oo tiirkiisu adag yihiin dawladuna la shaqeeyaan marka waxa kaliya aan aaminsanahay waa in nidaamka Soomaaliya hadda ku shaqeyso waa in wax laga bedelaa uu noqdaa urur u furan ummadda oo dhan Soomaalida oo dhan ba meel walba joogto gobolada oo dhan kuwa magaalada hooweyn noo dhowaalsi ka fataa jooga Soomaaliya meel walba joogto in uu noqdaa mid u furan Soomaalidu ay aamintaa ay ogolaataa fursad weyn aynu ku wada biirno Soomaaliya anigu cabditax ahaan 3 sano ka soo shaqeynayay Soomaaliya xubin ka maahin oo wax taa ma taqaan aan maanta ku shaqeyn kar ma jirto wax dhibna uma hayo waxaan aaminsanahay in ay arrimaha danaha Soomaaliya u adeegto waan aaminsanahay sababtana markaati 3 sano joogay ka shaqeynayay cid walba u tagtan waa aaminsanahay inay adeeg waayado ii koobaya ii sheeg midaynta masadka dadkan si ay uga hortagaan cunsurinimada iyo ayagoo midaysan ma ka hortagi karaan way kooban ay uga hortagi karaan ii sheeg waxay uga hortagi karaan waa wax fudud weey maxamed gudoomiye maxamed waa ka shaqeysanay muddo adigu sanadii bar 2 sano intaan gudoomiye noqon Soomaaliya liito haddii ay adkayso isu soo jiida Soomaalida Finland sharciyadan ay qaabka shaqeysan nidaamku yahay ay fududeyso Soomaalida ay u sameeyso nidaam in ay yeelato xiriir gobol kasta Soomaalida degan in gudiye loo sameeyo la ogaado dhibaatadooda kadibna ay wax kasto ka dhaca dhibaato kasto ka dhacda meel qof Soomaali joogo inay awood u yeelan karto inay difaaci karto tagi karto wayna sameyn karaan xaqiiqdii xiriir way la sameeyeen oo meel badan way tageen laakiin wali ma noqon in dadkii shacabkeennii annaga Soomaaliyeedna ayaa wali aan aaminin inaynu innaga aynu kaalinteeni buuxno in Soomaaliyeed inuu gallo ana kamida sababtoo anigu ma ana jeclaysan qaabka ay maamulku u socdo sidaa daraadeed waxaan go'aansaday inaan dibadda ka istaago laakiin wali waxaan rajaynayaa
in wax weyn xaqiiqda laga bedelka Soomaaliyeed fursad kaliya aan hasan ayada weey aynu ku wada biirno aynu dhan aynu la shaqeyno ayadoo waxa noqoto mid dadka u furan waa fursad xaqiiqda qaali ah weey wadamada kale kama jiro wadamada kale reer galbeedka sida Finland oo kale Soomaaliyeed oo kale kama jirto xaqiiqdii laakiin wali potentialkeeda ma gaarin waxaan aaminsanahay iyaguna waxyaabaha cabsida badan ee jirto oo laga baqayo dhibaatooyin badan yimaadaan in meesha laga saaro waxa ka weyn dhibkan lagu hayo ka weyn aynu ku furno ummadda dhan aynu ku soo xareeno Soomaaliyeed taasaan aaminsanahay aniga waaya Cabdi Fataax ma santahay haye qooje aniga waxaan aaminsanahay horta wax kastoo ina mideeyo waa mideysanahay oo wax kastoo ina mideeyo Ilaahay uu naga dhaliyay Soomaali baynu nahay dhaqan baynu wada leenahay diin baynu wada leenahay laakiin kala duwanaanshaha fikirka dadka ay kala duwan yihiin maaha in la isku cadaaweeyo waxa laga yaabaa in shakhsi meel gudoomiye ka ah in adiga aan ka fikir duwan tahay inaad meeshii uu ka shaqeynaya aad ku eedeyso maaha marka waxaan aaminsanahay Soomaaliyeed maanta jaanis bay haysataa saaxiibkay Maxamed fursadda aan ka faa'iideysana waxaan leeyahay jaaniska maanta ay haysato waa inaad nooga faa'iideysaa kulli inaga member baan ka nahay inaad qof walba ee maanta raba in Soomaaliyeed wax ka ogaado in irdaha loo furo welcome lana tuso macnaha inay Soomaaliyeed tahay hogaamiye weyn ay tahay ummadana hogaami karto waynu midoobi karnaa waxaynu ku midoobi karnaa Soomaalinimo intaas baan kaga baxaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kolley doodaan waxaa halkaas ka soo baxay inay tahay in Soomaalidu muhiim tahay marka hore inay u midowdo dhibaatada ka qabsan karta waddankan Finland oo wada deganahay hadday tahay cunsurinimo iyo hadday tahay wax kalaba intaba Soomaaliyeed waxaa la isku raacayaa inay tahay midda kaliya ee miday karta ayadana laga doonayay inay shaqo cusub qabato oo ku saabsan sidii ay ummadan isugu yeeri lahayd kan taageersan iyo kan aan taageersanayn intaba sidaasna ay awood u leedahay inay ku midayso daawadeel barnaamijkeennii gaarka ah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu